safaaradii joogto xaqiisana ninkan u dhicin karto inay horta ka aamusto forbidden one. And please ani waxa idin dhihi lahaa intaan videogan sii wadin ama aan ka sii hadlin waxa dhinacayga fadhiyo walaalkay fikir oo asna qaba ana fikir aan qaba ana fikirka ka hadlo horta keyga waa mideeda kaleeto dhalinyarada isli kuna waxa u sheegaa wax walba intiina aan sameeynin maskaxdiina ka shaqeysiya dhibaatada maanta taagan biri aday ku haystaa ogow runta saxada ninkan uga hadda aad biri u sheegtid tan amala ku dambeynayso laakiin hadda ka banaan baxdaan ama aad awaabushaan ina u mudaharaadaan sidoo idin ka codsadayba idinkana waxay idin tahay safe asna safe u noqonaysa xaqiisana uu helaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhaw channelka Ken Science Production please dan ugu cusub tahay subscribe like and share waa isweynay aad u weyn filimka soo saarana waa arkaysid actorkii laadirka saaxiibo waa lugtiisa maqan tahay otherwise aka gudubno horta maanta waxa inta u fadhinaa ama aan rabno inaan ka hadalno arinta ka hadlayna waxa waaye arin mudan in laga soo hadlo waxaan dhihi karnaa horta waa ka soo daahnay inta ka soo daahnay cafwan horta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba laba eray inaan maanta dhahaan jeclahay dhalinyarada inaan si gooni u la hadlo madaxdana si gooni u la hadlo sida wada ognahay social media waxa ka socdo dagaalka social media ka socdo aad u farabatay dad walbana way isgaleen laakiin hadda dadka ugu cadcad waxay ahaayeen Sharma Boy iyo Deeq Darajo iyo Daahir Cali Sow Cabdirashiid Shukur Baba horta sida ognahayba dad waxay sameeyeen arinta waxay kula faaqeen qabiil horta runtii qabiil meesha ma taagno sababtoo qabiil meesha u taagnin araba inay idinka jahil bixiyo Sharma Boy iyo Deeq Darajo labadna isku qabiil maaha midda saxda ah hantidiisi ama wixii wax ku shaqeysanahay ama shaqadiisi nafta walaalkiis Deeq Darajo ku furtay hadii qabiil meesha u yaalo kuma soo furan lahayn midda koowaad tan labaad ninkan dhahan Daahir Cali Sow iyo sida waan ognahay Deeq Darajo waa labadna isku dhow saasoo ay tahay asaa wuxuu ku dalbaday nin kale oo ka qabiila hadii qabiil meesha u jiro labadaas nin علاقات دغال ما دحمر لهين اوكي ميد كلو جرتو شكل بابا عبد الرشيد قعان وما قاد لهين اوكي شكل بابا شارم بوي Deeq Darajo ما تاغير لهين horta mees dagaal qabiil ma taagno waxay taagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed sidee magac ku yeesheen mise hormar ma loo ogol yahay ma fahansama kala dhacday mid saxda ah waxay tahay horta sorry waxa aad meeshan uga fariin ama aan uga dirayaa Abu Jalis ninkan dhahan Shukul Baba iyo Sharma Boy ayagoo dhalinyaro ah noqday hadana geesiyaal garab waay runtii qofka horta markuu geesi yahay wax walba uu sameyn karaa laba nin way isqaban kartaa nin wala dagaali karaa laakiin in macni hub isku adeegsado ama siyaasad dhankeeda iska soo galo ama askar iyo filankaas ay imaado horta wax macnihi ku fiican ma ahan teeda kale waxa rabaa inaan ka hadlo ama aan rabo horta ninkay dhahan Axmed Rashiid really aniga ahaan saami ah waa la kulmo isli meeshan amal horteeda markuu ninku ku dilaayay wiilka Soomaaliga ahaa inuu gar ahaa umaleynaa wiilkaas goobjooga ahaa xaadir ahaa sida wada ognahay reer isli sheekh way taageeraan Axmed Rashiid way support gareeyaan tuugi waxa lagu support gareynay laakiin hadda dhiiqo lagu hala galay that's why shaqadiisi uu haystay baawanimada ahayd inuu ku ekaado wax ka qurux badnaan mali because supporting markaas ka haystay laakiin hadda wuxuu dhiiqo lagu hala galay waxa soo adeegsaday nin Daahir Cali Sow muxuu adeegsaday Cabdirashiid lacagta Cabdirashiid Daahir Cali Sow uu ku bixiyay ma tahay mid Daahir Cali Sow jeebkiisa soo baxayso maya sababtoo Daahir Cali Sow ma jiro nin in la dilo $7,000 ku bixinay ama milyan lacag ku bixinay sababta jirta waxay tahay meel kale oo ka weyn waxay ka haystaan alaaqad Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed la hadlaya ismii ku nool waxa haystiin Janice ka haystiin waxay tahay saacadan hadda la taagan yahay dhibka walaalkan ku dhacay hadda idin ka banaan bixi weysaan ama badoodin barwaa ka muujin doontaan dareenkiina aan soo bandhigi weysaan Janice kale ma heleysaan because bri adi magac hadaa yeelatid taas ku dambeeyso xaqiiq way ma xaq miya in
deeq darajo islii oo uga qaxo laba nin dartood oo ku tago meel kale to Soomaaliya ugu soo laabto waa laba shakhsi hadii idinkana boqolaal ama kuwaana ku joogtaan waa maya waa waxa idinka idinka arkay tan kale to jirto waxaan rabaa in la hadlo madaxda Soomaaliyeed kulay horta anaga haddaan Soomaali nahay Kenya waxaa noogu taala safaaradda Kenya noogu taalana dhibaato walbo anagana lagu haayo way soo bandhigi kartaa okay laba video waan tusi doonaa labada video marka ay tuso maskaxdaada ka macnaheedu aad ka shaqeysi doontaa kadibna fikirkaaga ka hadli doontaa ana waa kana reaction celin doonaa insha Allah okay la dhigayso dooriyan la soo baxay toori markii la soo baxay adiga markii waxaad waa istaagay oo waa isdijiyay waa isku keenay markaa arkay xaqaad badan la igu sameeyay way soo kaxayeen waxa la iigay diga Cabdirashiidaha markii Cabdirashiid la iigay Cabdirashiid la iigay koorad baaburkii tay wadeen hajibaad badan ay wadeen ruuyay aniga raali kameeyay waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raali kameeyay wax lagu sameeyay waxa weydii adiga raali kaay waxaa ku kala ficilada wada qaraw aad isoo dhaliirtaasi adigoo awood u lahaa inaad ii imaadid oo aad ila hadisid dumarka dhaayir iska sharmo boy wuxuu waxa u sameeyaa viewsterteeda wuxuu waxa u sameeyaa in uu mutaqaalayo oo qamili waxas okay video horta ma sii wadi karno dabcan baad aragteen Shukababa wajigiisa waxa dhaawac ku yaal waxa garaafo ku yaal waxa u geystay ajaanib ma waa Soomaali anaga naga tirsan waa dad anaga naga mid ah okay Soomaali anaga naga tirsan ninkan dhalinyaranimo ee waxa loo dilay inuu ereyo run ah oo sheegay social media oo la soo fariistay okay haloo dilo muxumo maxaa loo sii adeegsaday darees boolisnimo in loo soo qaatay ama waji boolisnimo loo isticmaalay okay Ahmed Rashid shaqadiisa waxay ahayd inuu social media shaqadiisa waxay ahayd inuu sababaawa iyo cadow kale la dagaalamo ma ahayn dhalinyaro social media ku jirto oo siyaasadda inuu soo dhaxgalo ama ninkan wajigiisa la yeelay oo 7 ama 8 nin ku dalbado haduu rabo asay gacan u qaadin laakiin ninkii wuxuu ahaa Soomaali waxay dhahdaa qaadaa ee qariyaa waa isku mid haduu asaga dili haduu dad u diro waa isku mid okay dhibaatada ninkan heeso horta Allah ku boogadhay brada midda kaleeto midda ay ku dhahay waxaan la hadli rabaa madaxda Soomaaliya waxaan kula hadlaa videogan waa daawateen ninkan wiilkan dhibaatada heesto waa daawateen qof aan daawan media ku jiro social media waa ku xirantiin shaqadiina okay waajib ku saar ninkan Soomaali midda kood tan labaad waajib ku saar waxay tahay ninka dilo waa Soomaali asna tan saddexaad waxay tahay dareesa lagu dilay dhar Soomaali dhar shacab boolisnimo lagu dilay ninka dilay waa Soomaali sujuud wuxuu u diiwaan gashan yahay askarta booliska Kenya anaga Kenya safaarada ku leena Soomaali hadana xaqeena u doodi karna isku daya marka please anaga safaarada waxaan ku leenahay Kenya safaarada Kenya anaga ku leenahay waxay waajibkii ah ama saaran safaarada noogu taalo hadaa Soomaali nahay xaqeena inay Kenya nooga dhiciso okay hadda Ahmed Rashid ninkan uu dilay Soomaalinimo umuusan dilin asoo Soomaaliya ahay dhalinyaro ahay isliya ka tirsanahay laba noo isdagaasho ma aha waan Ahmed Rashid waa nin xil ka hayo dawladda Kenya adoo marka safaaradii joogto xaqiisana ninkan u dhicin karto inay horta ka aamusto forbidden please ani waxa idin dhihi lahaa intaan videogan sii wadin ama aan ka sii hadlin waxa dhinaciga fadhiyo walaalkay fikir oo asna qaba ana fikir aan qaba ani fikirka ka hadlo horta keyga waa mideeda kale to dhalinyarada islii kuna waxa u sheegaa wax walba intiina aan sameeynin maskaxdiina ka shaqeysiya dhibaatada maanta taagan biri aday ku haystaa ogow runta saxada ninkan uga hadda aad biri u sheegtid tan amala ku dambeynayso laakiin hadda ka banaan baxdaan ama aad awaabushaan ina u mudaharaadaan sidoo idin ka codsadayba idinkana waxay idin tahay safe asna safe u noqonaysa xaqiisana uu helaa okay ana halkaas uga baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومال مركز سواد جوجان عدد الله سلامنا نيوه كينزان. هبرة. نيوه هرت ما أنت أنا عوض أنا يوتيوب كاير فيرنا وحنا كي سيكي الكهلا يو
arrimihii daahir cali soo social media ka socday ana xataa waa arkay niyo laakiin ma dhageysan ma fiiriyay oo macnaha oo waa qiimeeyay oo waa miisaamay yani waxaan u miisaamay waxay ahayd wuu ka hadli lahaa markii dhibaatada intay socotay okay horta CK wuu ka hadlay ana horta ma dhageysanin laakiin videogiisa waa kana hadda ka daawanayna internetka okay kiin CK waa dhageysanina wuxuu dhahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتي ما تستعدون كجوكتا وسيكي ولا اسكو صنوق من السنة ولا بحي سنة وحن كل جينيا أدقوا عافمات قبا إنا الصلاة سنة عنقوا عافمات قبا سنة كلا كورة جينا براد جينيا إنا إلى متحي ما علمت هذونا أي آد أفي عن تاي وإيا سيدا عوانك كسو عربتيبا كرسي ياقي ديبو ديبو فكرتي إذا أيا رواها كأنها كسو كدبيو فرينا عندرو حان هلك مصاب فريستي إن فرينا عندرو داير على سوق waxaan weydeenay arintii ahayd guurkayga hore markii iska qabsigiisii gadaal dambe sheekada ay timaadeen toodanimada weeyaan xogaa ma yar buris yani macnaha isaguna oo daayira aliso oda ka okay waa burina suuq waa noo burina aniga oo lahaa waxaan ka odayeenayaa ninkan isaga CK weli ma socotaa mise weli socotaa yar dhaxas yar buuy arinta Sharma Boy okay ninka isaga wixii idin qabsaday wixii dhexdiina ka dhacay hadda xaalku meeshu marayo everything dadka way ka warqabaan indhoodana way ku arkaan dhagoodana way ka maqlaan aniga midaan doonayay hadda waxay tahay oo halkan u soo fariistay in aan ku iraado daahiro Sharma Boy hore wuxuu ku yiri asaagii ha iga reebin hadalkaas meel loo maro ma jiro بوتيغا كويستو oo isla yani waa miisaan maskaxdeeda qaadan wayday bont meesha u dhahay Sharma Boy hore ku dhahay aseegi hayga reebay yani Sharma hadda ma kortay isaga markuu uu hadlayo uu dhahay yani waa lagu qasbay markaan aniga raali gelinayay صح oo isanaha yani ficil baan macna xaqiis markii la dhahay yani walaaladeeda macnaha aan nafsadooda badbaadsanayay okay fiis waa haya saxta laga helaa okay yani qasab bay ahayd isaga laakiin hadda markuu soo qaadan uu dhahay uu leeyahay yani ka har muxuu isaga hortiis inta dagaalku u socday marka hada social media badankood ay wada arkeen inuu ninka qaladkiisa 100% yahay niyo horta mida jirto CK horta ayaanta asaab buu ku furnaa sax mid koowaad ani CK arintaas kama soo hadlin CK daarintaas muxuu uga soo hadli waayay ma dhahay because qofka Joss waa shakhsi uu leeyahay sax inuu ka soo hadli waayo inuu ka aamuso waa wax asaga qoseeyo ma fahant laakiin horta CK meeshan hadda uu dhahayo kahar daahir cali soo Sharma Boy hadda inuu dhahameen ina marar leeyahay because sababtoo ah Sharma Boy uu soo raali geliyay markuu soo raali geliyay raali gelin uu soo duubay raali gelin uu soo duubay arinta wali way sii socotay ya ma ka socotay hees wuxuu soo qaaday Sharma Boy oo abeesa ah CK reaction ka soo bixiyay heestaas CK heesta abeesa markuu soo qaaday ninkaas Sharma Boy ninkan oo ka soo bixiyay reaction-ka waxay ayadoo taalo kadib waxa soo baxday video-gu dhahayo arintaas ani waa lagu qasbay in aan raali geliyo saaxiibkii naftiisa deeq daraja ku furanay soo dhahayo Sharma Boy muu soo qaadanin markaas intuu soo qaatay muusan dhihiniyo daahir cali soo nin weyn tahay ani adigana laba qof oo waxaan nahay iska odayen karo hore iga soo odayeysay ya hadda ka odayenaya كبح موسى دين اوكي فيديو دمسنا marka okay hay waxa ku sheegayso horta waa sax yani marka adiga hadda aan leedahay yani muxuna wuxuu miisaamaya ama minaan boqora ku furnaa aan leedahay walaalkayga runta CK target kumihi walaalkaygu waa Kismaayo ugu yimaaday muddo badan aan wada joognay qaralaasiyo si sharaf nooga tagay si sharafaan horta ku soo cazumnay yani isaga eedeen oo xaq eedeen ama dhac qulucina iga maaha laakiin walaalkii waxaan sheegay yani macnaa maxay tahay markii arinta ay socotay inta hadda u dhaxayso muddo dheer bahayd sax hadana meel bay wada degan yihiin okay fiiriya waxay ku doon yihiin Yurubta okay saa ay tahayna way isla wada hadli karaan 24 ka saac wada isqabsan karaan iska warhaayaan isqabsan karo sax muxuu oga hadli waayay marka hore inta markii hadda ay noqotay inay sheekh manaa shacabkii bulshadii oo dhanba ay wada fiirsan karaan niyo fikirkaas turuntaa waay aan naftirkii hadda waxaan dhihi lahaa sababta hadda uga hadashay
waxay tahay adii daahir cali sow waa wada hadasheen hadda taas inaa ka hadashana CKO inaa ka hadashana daahir cali sow kugu soo kalifay baa markaa runta ku sheego sababtoo ah markii hore arintii ay taagneed ama hadda social media waxaa dhex taalo Sharma Boy in la dhahay show lagu qabanayaa Nairobi imaw Sharma Boy oo dheemay maanayo cilka case qays سيرار أحمد نكاها سيرار iyo xariir saddexdaasna in la dhahay macni soo raac sabab saddexdaas soo raac loo dhahay waxay tahay macni Ahmed Rashid ay saddexdaas isku dhow yihiin you know يعني qofkan caadi maya waa dareemi kartaa Ahmed Rashid saddexdaas isku dhow yihiin kama shakinaa Sharma Boy ya war Sharma Boy uu idin ka horeeyaa والله مركا روتي شيغو تيدا كليتو فنانينتا واوين ان عيب لو سو جيدو ولا فيعين صح فنان وين او سو عان بخاي ان عيب لو سو جيدو ولا فيعين هذا الك عاصمه امنسني شرم بويو دليرها سو كعay in hortiisa lagu cunaay seeraarna ma aaminsani xariirna ma aaminsani laakiin in darees wata oo dawlad ka socdo kama hor istaagi karaan sababtaasna waxay tahay ragga in la ceebeeyo ninkaana la qaato laakiin akiili adduunka maskaxda isku dhaafay noo CK u soo laabanayna CK marka runta ku sheego bro fikirka ka hadlaysid hada sa u hadlaysid perfect way dadka dhan waxay u maleynayaan waxa ka hadlaysid qalbigaaga inay ka soo gooday daacadaatay laakiin naaw qalbigiisa kama soo gooyin hadii qalbigiisa ka soo gooday inta hadda social media dhan la dhahay inuu Sharma Boy Kenya aadin Sharma Boy dagaalkan ha sameeyeen Sharma Boy niyow cunuga iska dhaafa saan yeela inta la dhahayo CK oo arkay in Daahir Cali Sow indhihi caalamka ay qabteen lagu wada jeestay Daahir Cali Sow lagu dhagan yahay that's why uu wuxuu leeyahay niyow Daahir Cali Sow joog Daahir Cali Sow wuxuu dhahay niyow arinta ina damiya rabaa amal soo arkay niyow social media soo fariisay ay qabso hora ku qabsaday maanta ay qabso qaabka lagu damin lahaa in wada looga dhigay sabab looga dhigay aan CK ila tahay okay CK aniga kulay saaxib ma joogtile iyo ma joogti ma roogtile adeeg ku taaban horta bida ku sheegaya sa hor loo sheegay ninka leeyahay walaalkay CK qofka bil aadanka waxa la yiraahdaa meel aad gaari karin isma gaarsiyo صح يعني arintan meesheen gaari lahayn gacan way ka baxday يعني Soomaali iyo waxay taagan yihiin hadda iyo war Soomaali muxaafad iyo mudan sidii Soomaali oo dhan idaara al soo taagantahay walaalo marka xaqada laga hadlo that's why oo soo dhaxgalay sababta uu soo dhaxgalaysid oo oga hadlaysid iga odayo ku yiri Soomaali okay point kala ku haya maxay Daahir Cali Sow iyo CK rag laba qof oo kala maran maaha the CK eraygiisa fiir afkiisa ka dhawaajin doon wuxuu leeyahay marna wuxuu dhigi doonaa waa Soomaaliyan nahay wada Soomaaliyan nahay marna wuxuu leeyahay nina isku dhownahay uu leeyahay sax that's why way isku dhow yihiin isku dhawowga Daahir Cali Sow haduu rabo inuu ninkaas ka qabsado intuu telefoon ka waco abtaxaad way xumaatay waa u jeedaa dadka kugu kacay arinta ma gib ka dhahay labadooda private inay u ahaato wuu sameyn karay laakiin social media intuu soo fariisto Daahir Cali Sow ninkaas uu ka yahay oo dhalinyarada oo hadla afka dhalinyarada ku hadlaysid Ahmed Rashid markuu soo dilay shukul baaba inta soo fariisatid dhalinyarada saan ma qabato xaq ma ahan xaqooda loo dhiciyo maxaa u dhigi weysay marka la soo fariisatid Daahir Cali Sow ninkaas qabto niyo dad mutafaad horta garaadkii meesha aan ka yeelna walaalkay CK iyo hadda meesha uu taagan yahay aqligiisa wallahi bilaa laba habeen maalin kalta habeen maalin تكلم هرتا Soomaali mid baan sheegaya Sharmo wadbel wa xaqiiqtaas hadda leedin dabel baan qabanayna hadda oo ku wareeraysan Sharmo Boy waa tagay هذا فيديو هذا أنا فيديو مدوبنا أنا هذا خلاص أنا هاي اسمنا قانون حقيقة من كهالله ماشي هذا حلقة صديق دونا لبضع سنين بدأ يكون قبيليين قفنا الله صار دونا قف كون غان الله صار دونا أما شرمه هنا الله صاره أما شكل بابا هنا الله صاره أما سيكي هنا الله صاره أما داهر على سوان الله صاره ده الله صار دونا فهمي mid baan ku sheegaya laakiin arinta qabiilka ka weynta Soomaaliya horta xaqiiqada marka laga hadlo waagi hadda 90 iyo waa laga tagay hadda qabiil waa laga tagay waxa la taagan Soomaaliya isku dubnaada Sharma Boy wuxuu noqday
record wuxuu ka jebiyey fanaaniintii hore marka xaqada la hadlo wuxuu noqday madadaalada dhalinyarta oo dhan madadaalo maxaa la sharma boy kabtiisa niyow marnoo gasho ma laha because sababtoo ah video keli dhowr minute boqolkay gaaray fanaaniinta hadda joogta xataa ma laga haayo marka runta ku hadlo saacitaana hadana saacitaana CK uu ka hadlay ha wuu sheegay hadda uu sheegay ha buu sheegay wuxuu yiri macnaha markuu cunuga uu dhaayay iska daaya yaani wuxuu soo qaadanay fanaaniintii hore xitaa afka inay sayaan bamodisa yaani fanaaniintii record oo inay dhigin buu dhigay okay horta video ina ku sii dheeraana marabno fikirka nooga aadana intaasoo aha laakiin dardaarankeena wuxuu yahay support Soomaali dhalinyarada in la support gareeyo teeda kale dhibaatada jirta haddana anaga dhanayna heysata hadaa magaca dhalinyaro xambaarsannahay ninkaan ma haysato animi i haysato CK ma haysato Sharma ma haysato Shukur Baba ma haysato Daahir Cali Sow ma haysato ma haysato Soomaaliya haysata brother Daahir Cali Sow ma kula tahay Soomaaliya inuu u dhigmi karo waa maya Daahir Cali Sow dawlada kale hoos ku wata sifa anaga aanan heer u gaarin hoos low mar walba low aan noqono marka waxa idin leeyahay Soomaaliya Daahir Cali Sow iyo nooca la midka ah iyo midka asaga uu wato dabada uu ku wato iyo inta la midka ah dhamaan dhalinyarta ka qaban si uga qaban kartaa adiga afkaaga ku hadal telefoon wada brother video soo dub runta sheeg maanta isli inta joogto oo dhan 100,000 oo qof oo Soomaaliya isli ku nool haddii video mid walba telefoonkiisa tuu video ka soo duubo hebel qaldan u Axmed Rashid 100,000 oo qof muudila waa maya laakiin Shukur Baba la dilay aniga waa aamusa adana kugu dambaysaa braa adoo aamusana lagu dilaa waxa lagu dilay ma kasaysid geesinimo ku dhimanayo runtana ku dhimo waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladeeda waxaan ka codsanayaa dawladeeda Soomaaliya waxaan waliba ka codsanayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa oo waliba ana codsi dawladeed ka hadlayo afka dawladda ahaan ku hadlayo waxaan ka codsanayaa dhibka iyo rafaadka dhalinyarta Soomaaliyeed ee lagu hayo Kenya waxa soo afjari karo ama inay ka hortagi karo anaga waa awoodnaa ka hortagno iska daay anaga ka hortagitaanka ka hortagin iska dhaafo waxaan awoodnaa xinii kartidii shalay lagu jirtay aan dumarku ugu dir jirnay 100 dumareed oo kaliya oo dirna kay ku filan marka xaqada kala hadlo anaga isa isku gumaadna naqaana ma ahan isa dad shisheey iskaga dhicino 100% waa macna waa kaad kara already warka gabagabadiisa wuxuu yahay dawladeena waxaan ka codsanaynaa walaalayaal Ilaahay nagu dhaarshay dawladan ee dhalinyarada dibka ku hayso war laba mas'uuliyo ama safaaraddeena nooga soo raro Soomaaliya noogu soo celiyo ama safaaradda anaga meesha noo taalo wax qabadkeeda aragna intaas waa muhiimad intaas waa safaaradda meesha maxay noogu taalaa ama aan wax ka aragna safaaradda ama safaaradda noo soo celiyo waa intaas muhiimadan iyo because dawladda kala jiro dawladda kala wax la qabsan karnaa anaga soo kaligeed ma lagu xirnaayad ayada anaga faa'iido nagu qabto heer badeena aan guriyay gaarto hadana heer waxay maraysaa anaga dhaxdeena isku disho anaga dhaxdeena warniyo dhalinyaro baasha qabiil waa ka weyn tahay Soomaali ay taagan tahay iyo ajaanib Daahir Cali Sow xataa waa la wataa ajaanibta wadato marka maskaxda ka shaqeysiya fikir ka shaqeysiya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو كم تأكل مدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بس وحاد لنا أني سقاوي وحاد سوق قبل دونا والله اوكي